السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان halkan waxaan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada ku nool gobolka Awdal. Maanta waxaan rabaa inaan ka direen celiyo hadal maalin dhow talo ka soo yeeray xirsi iyo wareysi uu Axmed Ismaaciil Samatar isaguna TV-ga Universal siiyay. Haddaan ku horeeyo arrinta xirsi maalinta dhow talo xafladda uu ka hadlayay waxaa joogay mujtamac aad fara badan oo ka kooban qaybaha bulshada. wuxuuna ku dulaaqimayay taariikhdii sanamna ay qaataan sanamna waxay agteeda ka qoran tahay waa dadkayga xasuuqay iyaga oo soo kaxaystay ciidankii migisay ayay gobolka Awdal xasuuq ba'an ka geystay nimankaas weeyaan agteeda waxaan ku dhiigle ama nin qof islaama dilay taariikh agteeda kuma yeesho mana ayindo ka anaga xitaa naga dhashay Allah ka yeeleen waayo waxa weeyaan qofka wax wanaagsan sameeya ayuunba taariikh laga dhigi karaa isagu maanta wuxuu leeyahay waxaan ku dhiiglayaashii xasuuqa baan geystay taariikh laga dhigo oo qaata marka sidee taariikhda u qaadan karaa anoo ka xadaarad dheer oo ka ilbaxsan oo ka wanaagsan oo waxaan dhici karin anoo wanaaga aan sheeganayaan waxa weeyaan dad islaam Soomaaliyeed ina mid ahaata ayaa rabaa adigu waxaad rabtaa in aad dad Soomaaliyeed aad kala qobqobto oo qabiil iyo qurun u kala qaybiso ayaad rabtaa waxa weeyaan hadaba taariikhdaasi ka soconayso caalamka iyo ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa sanam inay gobolka wada xasuuq baan ka geysatay dadkoogiina maanta nool yihiin oo ay xay yihiin waxayna beesha caalamka u sheegaan inay dawladda siyad bar ay gumaaday iyo qabiil ay inta ciidankii migisa soo kaxaysteen gobolka Awdal xasuuqeen kaasa xasuuq leeyahay koow dawladdan oo iyagu ay saraakiil ka ahaayeen oo ciidan ka ahaayeen ayaa meesha wax ka geysatay cid gaarina iyaga may lahayn dawladdan bay ahayd oo cid walba ka kooban marka arrinta xirsi waxaan ku soo gabagabanayaa xirsiyow dad u garaadkaaga hadashay laakiin ka dhageysta ka tuqunta waana gartaa inaad ugu soo hadasho waxa aan rabaa isagana inaan jawaab yar ka celiyo Axmed Ismaaciil Samatar wareysigu bixinay markaan dhageystay Axmed waxaan ku leeyahay ama half how ama ruuc Hargeysa ahaw ama half-kaaga iska ahaw kama hadli kartid future-ka ama mustaqbalka caruurtayada half-kaaga iskaga qaraabo oo waxaad ku helayso anaga waxba ha naga siinin kii Soomaaliland taageeraya ku qaraabanayeen iyo kii Djibouti taageeraya ku qaraabanaya kii Muqdisho ku qaraabanaya waa mid isaga u taala laakiin kama hadli kartid mustaqbalka caruurtayada kama armin kartid arinta aad ka hadlaysay khatumisteena cid adiga wax ka weydiinaysaa ma jirto cid adiga wax maxay tahay qoranaysaa ma jirto wariyaasha ku weydiinayaan way qaldayn kada bursiba wax laga weydiinay arintiisa waxa weeyaan hadaba hafaafkaaga iskaga qaraabo waxaad ka heshan anaga waxba naga siinin deynaadeero haddii Allah leeyahay kala bax hadalkan aad mar walba ka hadlayso iyo hafarkan aad dadka hafrayso iska daa oo lagu dhaamaa ina riyaalaha 8 sano ku aad sheeganaysaana waa ni dhaxal ku yimiday markii damana loo ila duufay taariikhda dib ma soo gali doonto in aan isaaq haynin madaxweyne meesha ka noqdo tanayn rasraad baad marka waxaan ku sheegayaa degmada aad adigu ka soo jeedo Gabiley hal xilibaan ku meelay beeshaadu ma halsamaroon beeshaadu kuma laha xur shiliidkii laga barakiciyay ee la soo celinayo markii la soo celinay dagaal ba ka dhacay akaasad leedahay Gabiley ha sheegan Gabiley ama timcad ba kaaga wad badan adiga iyo musabixi bulshadana waxaan kaloo aan ku soo gabagabanayaa bulshada gobolka Awdal ku nool waani waxa jirta dad yow fara badan oo dib iyo dheefba u wata
شعر كلا دونا حرام هذا كسانين وذا والشعر وين wadaadnimo intuu ku qabanayay wadada saxda ah iyo intuu wadada qaldan ku marayay ay kala badan tahay oo dadku intay arkaan uu ay tahay inta wadaadnimada laakiin inta xumaanta ama qaladaadka uu ku sameeyay mujtamacana la arkin ninka gudoomiyaha jaamacadda Camud wasafiirka Siraayo oo fadhiya magaalada waa ninka qabiilka iyo kala qobqobka ka taliya waa ninka risaalada gudbiya ee sanam waa ninka kala furfurka lacagaha ku soo qaata هلو فوتشكن هذا الأوجاد هيجينا أون جامعات أنت تبارس سمايستي البورصات دم بايس موجود تجي للسي مال كوجي حقوقي مرقوقي كم طيعي هيجينا أفرت مع أرضي ذا كسر بعيس حقوقي أفرت مع أرضي ذا حقيقة تجان محيط طبعاً سقوا عملات ماشى فرية ديبت وهاي هلا ديب الله أيوة ذكر وحنوش شريعة يينا نقولين صعب بلا شدة كسكتهما قف كستا وميل جوجاي إن لا حساب تماي وواجه قفك إنه لا حساب تمر رباينا يينا تذكر قبيلكم ماذا حماري أي سوق ربودين وهيب البال الله الله يان الأوريني سليمان واحد ويان واني يروح حرام كور كيد بدوميا جامعته برنامج يكله أين ذا أوجينا أيوفليا واني كي بابيي سياسة جبهتي هريان ما تقبل إثيوبيا تقبل بعد ما تكوي الله هيدين ما أنت تاكستان ما تقرب كهشان ورجي بابي لمبر وان بكها هدي أقولتي سي يكرتي سو أي مال مريسو نظام كي وأسنا مسوهر دي يسعنا وكيل الله يسوق شيكيري بركة رفض سليمان هجر دامد وكهيو شعبي وهالأوجادو jaamacadana isagu ma lahayn waa loo dhiibay taxilkeyga iska wareegsi oo jiilkan cusub ee soo kacay ee maskaxdooda fresh ka tahay ha loo dhiibo oo ha hogaamiyaan si ayna burbur ugu dhicin hadii kale wadadii Liibiya martay Qadaafi markii ka tagay lagu yiri dalka wadiiday markuu dhintay maxal Liibiya ku dhacay baaba iyo burbur Soomaa isagu jaamacadda ma laha taas loo rabaa baa mulanayay waxa leenahay shaqada jaamacadda iska dhig والسياسة التوسع وقل مجتمع مركب وحقبه هديك عليه وحويان توحيات كهش وحبايب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.